jawaab celino kala duwan ayaa laga bixiyay xukuno baatil ah oo maalmo ka hor ay soo saartay maxkamadda daaquudka dowladda Hindiya kaasoo muslimiinta duudsiinayay masjidka taariikhiga ah ee Babri. malaayiin ka mid ah gaalada Hinduuska ayaa dabaaldegyo ka dhigaya magaalooyinka waaweyn ee waddanka Hindiya kadib markii maxkamadda sare ee xukuumadda New Delhi ay mushrikiinta u sharciyeysay inay dumiyaan masjidka ayna ku bedelaan macaabid. hogaamiyaasha ugu sareeya gaalada Hinduuska ayaa dhigay xaflado ay ugu dabaaldegayaan waxay ugu yeereen maalinta taariikhiga ah ee ay dib u soo ceshadeen Babri ayna u rogi doonaan macbad shirki ah. warbaahinta afka dowladda Hindiya ku hadasha ayaa baahisay wareysi ay ka qaaday baadariyaasha gaalada Hinduuska kuwaasoo weerar afka ku qaaday muslimiinta. hogaamiyaasha muslimiinta ayaa iyana sheegay inaysan u hogaansami doonin qaraarka maxkamadda Hindiya ay qaadatay iyagoo dowladda ku eedeeyay in si aan caad saarnayn ula safatay dadka Hinduuska ah. We are not satisfied with the judgment. نحن غير راضين عن الحكم علينا أن نمحصه جيدا. annagu kuma qanacsanin xukunkan si fiican ayaan u dhuuxaynaa qodobada maxkamadda ka soo baxay kadibna waxaan qorsheynaynaa tallaabada ay tahay inaan qaadano mustaqbalka. وبعد ذلك سنقرر ما هو الإجراء الذي سنتخذه في المستقبل. مجمع مسلمين هندية ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku dhaleeceeyay mowqifka xukuumadda New Delhi. wariyaal ku sugan waddanka Hindiya ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda uu dhulka geliyay rajadii muslimiintu ka lahaayeen inay dib u dayactiraan masjidkooda taariikhiga ah kaasoo ku xirmay rabshado dhiig badan ku daatay oo ka dhacay sanadkii 1992. ururo islaami ah oo ka jira wadamada Pakistan iyo Bangladesh ayaa iyana dhaleeceeyay tallaabadan ay qaaday maxkamadda sare ee waddanka Hindiya. wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Hindiya waxay sheegtay in ciidamo dheeraad ah ay u daadgureynayso halka uu ku yaalo masjidka Babri si ay u adkeeyaan amniga gaalada Hinduuska oo durbadiiba bilaabay inay dumiyaan oo ay dhameystiraan inta ka harsan masjidka. magaalooyinka Hyderabad iyo Janaayo oo muslimiintu ku badan yihiin waxaa ka dhacay kulamo looga arinsanayo sida ay u wajahayaan xaaladda soo korortay balse maamulada maxalliga ah ee dowladda taabacsan ayaa u diiday hogaamiyaasha muslimiinta inay warbaahinta la hadlaan iyagoo laga baqdin qaba in kacdoono hor leh muslimiintu dhigaan. inkastoo 27 sano laga joogo markii Hinduuska burburiyeen masjidka Babri oo dhaliyay dagaalo dhexmaray muslimiinta iyo Hinduuska oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2,000 oo ruux oo badankooda ah muslimiinta haddana weli waxaa taagan carada muslimiinta. المسجد البابري هو مسجد تاريخي مهم جدا ومنارة تاريخية مهمة جدا للمسلمين في الهند. بناه السلطان المغولي المسلم ظهير الدين محمد بابر في القرن السادس عشر. masjidka al-Babri waa masjid taariikh muhiimad ah leh waxa uu kale uu leeyahay manaarad taariikhi ah oo muslimiinta Hindiya muhiim u ah. masjidkan waxaa dhisay suldaankii Maqooliga muslimka ahaa ee Dahiruddin Muhammad Babri qarnigii 16aad. muddo qarniyo ah ayuu masjidkan ka dhignaa meel ay aad u caamiraan muslimiinta Hindiya balse qarniyadii dambe waxa ay soo tarayay sheegashada Hinduuska ah in iyagu masjidka ay leeyihiin. waxay ku doodayaan in markii hore goobta masjidka laga dhisay laga burburiyay macad Hinduusi ah oo Ilaahay u yaqaanaan kaas oo lagu magacaabo Rama. wuxuu ku yaalaa masjidka magaalada Ayodhya ee gobolka Uttar Pradesh waxaana uu ku fadhiyaa masaaxo ballaaran oo gaaraysa ilaa 25 hektar. masaadirta taariikheed ee kala duwan ayaa tilmaamaysa in masjidka Babri uu dhisay hogaamiyihii muslimiinta ee lagu magacaabayay Dahiruddin Muhammad Bair kaasoo muddo maamulayay dhulka Hindiya. Hinduuska ayaa ku doodayay in markii hore dhulka laga dhisay masjidka uu ahaa macbad iyagu ay lahaayeen isla markaana laga dumiyay sanadkii 1528 markaasoo ay sheegeen in laga dhisay masjid. iyagoo sheegashooyinkaasi ka duulaya ayay waxay si joogto ah weeraro ugu soo qaadayeen masjidka Babri iyagoo uu dambeyn ku guuleystay inay burburiyaan. 22 Diseembar 1949 ayaa waxaa masjidka Babri soo weeraray kooxo Hinduus ah waxayna asnaam dhex dhigeen masjidka waxaana markaasi kadib boolisku ay gabi ahaan bixireen masjidka iyagoo ku andacooday in la isku haysto.
3 November 1948 ra'iisul wasaarihii Hindiya Rajiv Gandhi ayaa soo saaray amar uu ogolaanayo Hinduuska inay barxadda masjidka Babri ka bilaabaan dhismaha macbad sidoo kalena albaabada loo furo masjidka si ay ugu cibaadaystaan Hinduuska 6 December 1992 kooxo Hinduus ah oo helaya taageerada ciidamada Hindiya ayaa dhulka la simay masjidka Babri waxaana markaas kadib dhacay dagaalo dhexmaray muslimiinta difaacanayay masjidkooda iyo Hinduuska soo xadgudbay dagaaladaas oo sanado badan dhacay waxa ku dhintay ugu yaraan 2,000 ruux kuwaas oo badankood ahaa muslimiinta sanadkii 2010 maxkamad ku taala wadanka Hindiya ayaa soo saartay xukun qeexaya in masaaxada masjidka loo qaybiyo 3 qaybood 3 meelood marka loo qaybiyana qayb la siiyo muslimiinta halka labada qaybood kalena la siinayo Hinduuska arrinkaas waxaa si adag uga hor yimid muslimiinta iyagoona sheegay inay tahay gardaro garab heshay waxaana tan iyo markaasi muslimiintu codsanayeen in loo ogolaado inay dib u dhistaan masjidka Babri taas bedelkeeda Hinduuska ayaa iyagoona ku doodaya in dhulka oo idil iyaga la siiyo si ay ugu dhistaan macbad waxaana xilligaasi la dhisay lajnad loogu magac diray Libraham taasoo qabatay 4,000 oo fadhi oo ay ku eegayso qadiyada masjidka Babri taas bedelkeeda Hinduuska ayaa iyagana ku doodayay in dhulka oo idil iyaga la siiyo si ay ugu dhistaan macbad waxaana xilligaasi xisbiga Bharatiya oo kamid ah asxaabta xagjirka ee Hinduuska matala haddana talada wadanka gacanta ku haya ayaa kaalin weyn ka qaatay duminta masjidka Babri waxaana qadiyada masjidkan uu u adeegsaday si uu ugu helo codadka Hinduuska marka la joogo waqtiyada doorashooyinka wajiga saddexaad ee qadiyada masjidka Babri wuxuu soo gabagaboobay maalintii Sabtida oo taariikhdu ku beegneed 9kii bisha 11 2019 waxaana maxkamadda sare ee Hindiya go'aan ku gaartay in dhulka masjidka Babri lagu wareejiyo Hinduuska oo ay ka dhistaan macbad muslimiinta Hindiya ayaa go'aanka maxkamadda ku tilmaamay mid ka dhan ah iyaga waxayna sheegeen in wax kasta oo dhaca maalin dib loo dhisi doono masjidka Babri Narendra Modi oo ah ra'iisul wasaaraha Hinduuska xagjirka ah ayaa 3 bilood gudahood qaaday 2 talaabo oo muslimiinta ka dhan ah bishii Agoosto ee la soo dhaafay ayuu soo saaray xeer muslimiinta gobolka Kashmir gumaysi toos ah gelinaya isla markaana laalaya qaanuun hore oo dhigayay inay noqdaan ismaamul hoosaad talaabadan kale ee uu qaaday ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaa ah daandaansi kale oo Hindidu ku doonayaan inay ku kala gaabiyaan muslimiinta oo sanadihii dambe si xawli ah u sii tarmayay macadka Chatham House ee wadanka Ingiriiska ayaa warbixin uu hore u soo saaray ku sheegay in marka la gaaro sanadka 2030 dalka Hindiya uu noqon doono dal muslim ah muslimiintuna ay aqlabiyad noqon doonaan marka loo eego tarankooda sida xawliga ku socda كسفينة تاهت بلا ربان فتمزقت وتفرقت وتصرمت وغدت بلا عز ولا سلطان